baan ku aragtay waxaan la wadaaga calaamadaha usbuuca ugu horeeya ee uurka. dumar badan way kala duwan yihiin, way kala dabeecad. ilaahay saas uu abuuro Soomaa. ilaahayna waxa dadku way kala duwan, dadku isku mid maaha. dad walac waa dareemaan uurka markii koow waa dareemaan, dadna ma dareemaan. marka aan inta khibrad u leeyahay aan soo arkaan la wadaaga insha Allah. inta aan ilmidada waxa laga yaabaa inta aan arkay eeganay arkin, inta hadda sheeya in ka badan dad inay arkaan laga yaabaa. marka soo dhawaada, marka please channelka subscribe noo saar. channelka waxa waaye Moroni routine waa la soo geliyaa, afaaraha dumarkana waa la soo geliyaa, ma fahmino. then waxa waaye calaamada koowaad waxa waaye inaa weysaa periodkaaga ama caadadaada. waxay cadeyntaas u tahay inaa uur qaaday. hadaad isbuuc sugu jirtay bish shanta bish aad sugu jirtay aad iska weyso 5 bir ama 6 bir ee ku dib u dhacdo, marka meeshaas waxaa ka cad inuu uur jiro. taasaa cadeyn walow ay jiraan inay markino caadada inay maqnaan sabab kale jiraan, laakiin uurka dad qaf caafimaad qaba aad caadada bilowba u ma jirtay hadii aad bisha marka ugu horeysa ay weysid iyadana waa taasaa. kadib tan labaad muxuu heeday waxa waa inaad isku aragtidkii muxuu heeday dhiicaan dhiig caadada meesha aad ka sugaysid waxaa isku arkaysaa qoyaan fara badan oo dhiiga caadada u maleysid. waa tan saddexaad soo xafaanta ma tan labaad ahay. tan saddexaad waxaad isku arkaysaa foolkaaga nabra yar yar oo afka finan cad ku wata, arkay afka hore cad ku wata. badanaa aniga waa isku arkaa inta aan ilamiday ma ogi isbuuc ugu horeeya marka uurka yeesho waa iga soo baxaan, fahmino. tan saddexaad naasaha ku xanuuna. hadaad u gubtahay naasaha badanaa waa ku xanuunaya maadaama meesha caano u baranin oo caano loo diyaarinayo. inta dhashow laakiin ma dareema, laakiin inta u gubka badanaa wuu dareema. ana markaa u gubka ahay waa dareemaa. soo xafaantay calaamada shanaad waxaad ka dareemaysaa calooshaada hoosteeda, hoosta agteeda minka agtiisa waxaa ka dareemaysaa inay maaso ka kacayso. maxaa yeelay meesha waxaa loo diyaarinaya ilmo inay galaan. waxaa dareemaya maaso yar aan badnin, adi xoogaa maaso yar dhadhac meesha waxay ku danqanaysaa sida qof maaso ku taawata camal, ama inay ku cunaysaa muddaa. meesha waxay isku diyaarinaya ilmo galeenka, wuxuu isku diyaarinaya marka inuu ilmo diyaariyo, ma fahmino. markaas aad dareemaysaa maaso yar aad dareemaysaa. calaamada waxa waa shanaad, taasaa ku ogaanay insha Allah. calaamada lixaad waxaad ku ogaanaysaa madax xanuun. madax xanuun ma aha, daal fara badan aad isku arki jirnaa isku arkaysaa. xoogaa markaa wax qabato waa daalaysaa. tan toddobaad waxaad isku arkaysaa muxuu yeelay madax xanuun oo saa'id ah. madax xanuun aad isku baranaad isku arkaysaa. dadka qaar ma dareemaan laakiin dad yar dareemo. marka madax xanuunka xoogaa madaxa xanuun isku arkay. tan sideedaad waxaad isku arkaysaa laba aan matag lahayn subaxdii hore markaa ka soo kacdo. waa isbuuc ugu horeeya. inta dambe bilaha dambena matag waa iska imaada, laakiin isbuuc ugu horeeya xoogaa waa la laboonay laakiin matag ma arkaysid. waxaa subaxda hore waxa waaye aad soo kacdo laba yar oo meel dheer aad dareemaysaa. taas waxay cadeyn u tahay inaa uur leedahay isbuuc ugu horeeya aad ku jirtid. marka matagtan waxa labada waxay calaamada sideedaad soo maaha. calaamada sagaalaad waxaad isku arkaysaa calool fadhi ama saxar adeeg. maxaa yeelay waxa waaye jirkaaga bedel weyn ku imaanaya. marka calool fadhiya isku arki jirnaa isku arkaysaa. dad bas kuma arkaan, dad waxay ku waashaan musqul aado, laakiin calool fadhi badanaa wuu dhacaa. calaamada 10aad waxaad isku arkaysaa dhabar xanuun aan badnayn oo waxa waaye oo adi dhabarka wuu ku xanuuna laakiin dhabar xanuun oo saa'id maaha. hadduu saa'id ku xanuuna waa inaad isbitaal aadaa, wax kale ayaa jiro, ma fahmino. dhabar xanuun aan saa'id ahayn jiro. marka asxaabe intaas calaamadaad isku aragto uur ayaa jiro. marka inta awlaadhiisana awlaad Ilaah siiyo, inta haysatana la oo barkee, inta xaamilana Ilaah u fududeeyo. marka channelka subscribe noo saara.